gudaha in markaa leedahay maamul goboleedkii galmudug dowladda ku meel gaarka waxaan filayaa su-aashaas in wariyaha ay weydiiyey markii hore oo aan ka jawaabay haddaan rabto inaan kugu celiyo waxa weeye xiriirkeena waa wanaagsan yahay xiriir fiican baan leenahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystow aanu kasii socono waxaad nagala soo xiriiri kartaan 22 38 eber 4 92 tan xiriirka markaan ka hadlo wasiir galmudug waxa ay dhinaca ku haysaa qaybo kamid ah Puntland soma daris baan ha daris marka la yiraahdo dadka kamid ah madaxda Puntland markii la weydiiyo dhismahan qaybtan cusub ee galmudug waxay yiraahdaan aad baan ugu faraxsanahay dhankiina waa sidii ha noqoto dhanka nabadgelyada siyaasadda wax qabadka ha noqoto waxa la sheegaa xiriir wanaagsan aad leedihiin xiriirka aad leedihiin Puntland iyo galmudug waa sidee wasiir xiriirka anaga aan leenahay galmudug iyo muxuu ahaa Puntland waa xiriir Soomaalinimo waa xiriir walaaltinimo waa jirta muxuu ahaa waxyaalo la isku khilaafsan yahay inay jiraan waa dhici kartaa in mararka qaarkood iska horimaad meelaha qaarkood imaan karo sida sanadkii hore dhamaadkeedii ka dhacday magaalada caasimada Gaalkacyo hase yeeshee anaga waxa iriduhu noogu furan yihiin nabadda iyo heshiisiinta iyo in la xalliyo markasta wixii khilaaf jira anaga dhinaceen waana rabnaa anaga dad kasta oo Soomaaliya inaan xiriir fiican la leenahay wixii jirana markaas in la xaliyo anaga dhinaceena wixii ku xiran weey waan gartay waxaad nagala soo xiriiri kartaan 22 Puntland dhankeeda marka la tilmaamo ismaamul goboleedkooda inuu daab soo jiray kiina waa 4 sano hadda sanad guuridii ugu dambeysay hadda la sheegay 4 sanadood wax qabadka iskuulo badan baa la furay jaamacadaha la furay waxqabadkiina aad buu wanaagsan yahay dhismaha dalka ama qaybtan galmudug ma haysaa wasiir tirada dadka ku nool intay la eg tahay populationka galmudug guud ahaan aniga hadda tirakoobkeedii ma hayo laakiin population aad u badan oo muxuu ahaa waliba dadkii awal deegaan ka soo jeeday kaliya maaha galmudug waxaa hadda ku nool qaxootiga labaad tirada markii la fiirinayo qaxootiga ugu badan Soomaaliya hadda wuxuu ku sugan yahay Afgooye oo 30 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho qaxootiga labaad tiro ahaan hay'adaha samafalka oo UNHCR iyo hay'adaha kale oo gargaarka fidiya iyo dadka kale oo arintaas xoogaalku ah waxay soo sheegeen qaxootiga labaad inuu ku nool yahay dhinaca galmudug Gaalkacyo waan gartay ma miyaan hayna cid ku jirta khadka telefoonka oo Soomaaliya su'aal qabta halo salaam عليكم السلام كسلو لانت نفكا Soomaaliga idaacada Samadoon habeenka hadda nahooda soo galno martii waxa halkan ku ah wasiir ka tirsan ismaamul goboleedka galmudug oo lagu magacaabo Cumar Xamuud Roble kusoo su'aashaada iyo sida ay u dhigato dhageystay وانا كما قلنا في وزيركم wasiirka waxaan jeclaanahay inaan hal su'aal weydiiyo waayo haddii ka wariyo wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan ku dayno Somaliland iyo Puntland magaalada labadaas maamul waxay ku xiran yihiin si toos ah oo hadda aan qarsoonayn dowladda Itoobiya oo marba maarta xiriirtaas u leeyihiin marka hadda wuxuu doonayaan marka inay ayana dalka ku xiraan Itoobiya وسؤال كان ويا أنت ضيشة أنا بوينت كان هذلي وهو اسمها حبك الله لسي دولة جولات كجلمد حبك الله لسي هذه دقيسنا يسي سؤاشي هراء وريها ويدي مركي عن كجوابي وها عالمكو اسكودي إنه صومالي لسه أصلا استعمالي مثل كله هذا توب داون أبروتش معناها كرر قصو بلا مدحوينا لسه رئيس وزراء لما قعابه وزير هذه الأساس هوس لو وضو أيضا هو شقيم وذي عالم أساس لسعوديد حصية شو واحد شقي وتصالف في عن نقطة إيران وتصالف في عن حبك اللورد الصي معمولة كتيرة محوها سوماليلاند يبونلاند especially Somaliland أو أنتي قرتدي سياسيين تي برشلي سوتك تبورمه هل كاس لقى صور الصي هوس لقى صور الصي معمولك تصالح هني عن كهل اللي واحد بسنات كدولة بكهل اللي محوها arrimaha kale oo xiriirka dibadda kuma jirin maxuuha warbixinteeda kuma jirin hore magacaaga maxaa waa magacayga fahan weeye su'aalka waxaan jeclahay inaan wasiirka weydiiyo si kooban haye
waxaan jeclaan inaan weydiiyo xiriir toos la leedihiin deegaamada kale oo dariskiina sida maamulkan xibin iyo xeeb iyo meelaha ka taliyo siyaasa ma ku jirtiin inaa raggaas aad maaragtay kusoo eegeytiin aan biirisiin maamulkiina waxa weeye waa run wey xibin iyo xeeb galmudug magaca galmudug waa galgaduud iyo mudug galgaduud iyo mudugna waa taqaanaa geography ahaan meelaha ay ku yaalaan annaga magaca saas baan u bixinay markii hore hase yeeshee control in dhulka annaga hadda maamulkeena uu ka shaqeeyo ma gaarsiisna deegaanka hadda lagu magacaabay maamulka laga dhisay waa xibin iyo xeeb wadahadalna waa wadnaa inaan muxuu ahaa midowno in la isku daro in hal maamul la sameeyo midnimada soomaalidu xoog ku yeelan kartaa cid kasta oo maamulkan muxuu ahaa nala wadaagi karta oo muxuu ahaa meel kasta oo aan ku ballaarin karno waxaan ku jirnaa barnaamijkeeda inaan muxuu ahaa aan ka shaqeyno wadahadalkuna waa noo socdaa xiriir fiicanna waa leenahay arrimahaasna wax badan baan ka wada hadalnay welina waa ku guda jirnaa sidii aan xibin iyo xeeb maahina aan uga sii gudbi lahayn dhulkii loo yaqaanay mudug waagii hore ama galgaduud iyo mudug marka la isku daro wadahadalku waa noo socdaa maamul dhulkaas oo dhan ku fidsan baan rabnaa oo dadka deegaankaas oo dhan ay qayb ka yihiin taladiisa iyo dhismihiisa iyo isku keenistiisa waayahay waxaan filayaa inaad qanacsan tahay 21 eber 9 ayaad naga soo wacay aad baad umaasan tahay dhegeyste jalawasiir haddii aan ku weydiiyo tii ahayd arrimaha Ethiopia marka laga hadlayay dalka Soomaaliya waxaa la sheegaa in Ethiopia ay awood badan iyo faragelin ay ku samayso maamul goboleedkan la dhisay 4 sano jirsaday ee galmudug faragelinta ama xiriirka ay leeyihiin nooc kasta noqday dhanka Ethiopia waxaad nooga sheegi karto arrimahaas ku saabsan Ethiopia annaga dowladda federaalka ma nihin dowladda Soomaaliya ma nihin annaga waxaan nahay maamul hoosaan nahay Ethiopia laakiin waxa la sheegay si gooni ah inay maamulada kala duwan ee waqooyiga ama Somaliland ama Puntland inay ku haystaan xoog waxay qabtaan wasiirada iyo dawladda loo sheego ay u sheegaan Ethiopia annaga cid xoog nagu haysataa ma jirto waa maamul hoos ka soo dhisnay waa maamul annaga gacanteena ku haysano cid xoog ku haysataa ma jirto dadka bulshada iska leh maamulkan ayaga dhistay ayagaana wata wixii xiriir ku saabsan Ethiopia waa dawladna dawlad bay la hadashaa federaalka bay la hadlaysaa maahina annaga muxuu ahaa nasoo aadimayso sidaan markii Puntland Ethiopia ka hadlayso arrimaheeda siyaasadeed kalama xiriirto dhanka Soomaaliya ama Sheekh Shariif waxay si toos ah u xiriiraan Puntland iyo maamulkeeda waa ognahay idinku watiina waa sidaas oo kale kulli waa su'aal waxa weeye muxuu ahaa arrintaas annagu Puntland waxay shaqeynaysaa 10 sano Somaliland ka badan annaga waxa weeye waxaan ku mashquulsanahay dhismihii maamulka iyo barnaamijyadii hoose oo muxuu ahaa wax kasta waxaan ka soo bilownay wax la yiraahdo scratch marka barnaamijyada siyaasadda muxuu ahaa galmudug iyo Ethiopia iyo Kenya iyo wadamada anaga wali hadda waa barnaamij aanan gelin weeye barnaamij aan muxuu ahaa wali waqtigiisa aanan gaarin weeye waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka arrimahaas ka wada hadlaya dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia federaalka Soomaaliya iyo Ethiopia marka aad ka leedihiin Ethiopia kale waxa ka xiriirsan dawladda Sheekh Shariif والله هذا أنا local بانه local أنا قدرها عن لنا هاي دولة الصومالية أنا وكيلة دولة الصومالية الله حريرنا أنا سكولنا اللي سي جامعتها عاوني إذا قالوا كيش عندك الصومالية دولة كيش دولة الصومالية لصعتها إنسان أود وحكوا عاوز إنسان لهين هسي شاب محوها سياسة لهان iyo protocol ahaan habab kale bay noo caawisaa ma hina dawladda federaalka Soomaaliya ma hayso awood dawlad goboleedyada ama deegaanada Soomaaliya ay gacan ku siiso ma laha awood dhaqaalana ma laha awood muxuu ahaa wala socota laakiin anagu waa isku tashanay dadka deegaanka waa isku tashadeen resources-ka ayagu haystaan bay ku xisaabtameen resources-kaas baana lagu dhisaa iyo wixii hay'ada oo muxuu ahaa international NGOs oo ka qayb qaadanayna oo la kaashadaa baarlamaanka dalka Soomaaliya dhaqaalaha la siiyo caawinaadda sida la sheegay adduunka ka timaada idinku baarlamaankiina iyo wasiiradiina ayaa maalgeliya dhaqdhaqaaqa aad samaynaysid Norway ku timi ama kulanada ama hawlaha aad qabanaysid dhanka dhaqaalaha xagee waad ka heshaan caawin waa sidaan ku sheegay hawlaha barnaamijyadaas horumarinta waa isku tashanay baarlamaanka iyo wasiiraduna waa isku tashadeen resource-ka annagaan haysanaan ku shaqaynaa so far adduunkuna muxuu ahaa qaldaan waa gaarsiinay sidii looga qayb qaadan lahaa deegaankan galmudug si gacan loo siin lahaa barnaamijyadaas horumarinta ah ama xoojinta maamulka ah wixii muxuu ahaa dhaqaalaha oo ay ku fidin karaan
waa u sheegnay inay muxuu ahaa haddii alla ku roon yahay ay ka qayb qaataan. yaale wasiir booqashadaada magaalada Oslo aad ku timi ma noqotay mid successful ama aad ku guuleysatay u timi? aad iyo aad waxaa successful muddo hadda ugu dambayso